سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. درسنا هو درسي لحيا اللباطنات سورة البقرة. درسنا هو حوكب الأمية آيات بقول إيا أفرتناد كنمد سورة البقرة. آيات كان درسنا وحي كمديهين aayaadkii darsigii hore ee inoo soo taxnaa. waxaynu ku soo guda jirnay in nimankii yahuud iyo nasaara bani israa'iil carruurtii nebi yacquub inay ku muransanaayeen kuna doodayeen in iyagu ay haystaan diintii nebiyullaahi ibraahim, inay iyagu yihiin kuwa xaqa ku taagan. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu halkan ku caddaynayaa in wixii ay sheeganayeen aanay waxba ka jirin bilaahi subxaanahu wa tacaala tilmaamaya. nebiyullaahi ibraahim inaanu yahuudi ahayn, nasraanina ahayn bilaahi subxaanahu wa tacaala tilmaamaya. qaala tacaala, rabbi wuxuu leeyahy am taquuluuna ataquuluuna ma waxaad leedihiin bani israa'iil ina ibraahiima nebiyullaahi ibraahim iyo wa ismaaciila nebiyullaahi ismaaciil iyo wa isxaaqa nebiyullaahi isxaaq iyo wa yacquuba nebiyullaahi yacquub iyo wal asbaada carruurtii nebi yacquub dhalay kaanuu waxay ahaayeen huudan yahuud aw nasaara aba nasaaro. bisaabaad leedihin buli rabbi subxaanahu wa tacaala, waxaad ku muransantihiin ee laydinka fujin kari laayay ma waxaad leedihin nebiyullaahi ibraahim iyo ismaaciil iyo isxaaq iyo yacquub iyo carruurtii nebi yacquub ayaa kaanuu ahaa huudan yahuud aw nasaara amba nasaara buu leey rabbi subxaanahu wa tacaala. rabbi wuxuu leeyahy qul dha nebi allow a antum waar ma idinka aya aclamu ogaansho badan am illaahu mise ilaahay? idinkii alle kiine aqoon badan, ma ilaahay baa xaqiiqada og mise idinkaa og buu leey rabbi subxaanahu wa tacaala. ilaahay baa og, ilaahay baa xaqiiqada og, waxaad garanaysaan male. waman adlamu yaa ka dulmi badan, yaa ka gardarro badan, cid ka dulmi falid badani ma jirto miman ruux katama qariyey shahaadatan marig amba makhraati cindahu agtiisa adoo min allah ilaahay xaggiisa ka aaday. nimankan bani israa'iil waxay kutubtoodii ka akhriyeen oy xaqiiqa u og yihiin inuu nebi maxamed rasuul xaqa yahay, inuu nebi maxamed isagu keligii diintii runtii xaqiiqadeeda nebiyullaahi ibraahim uu haysto. markaa rabbi wuxuu leeyahy waman adlamu yaa ka gardarro badan miman ruux cid ka gardarro badani ma jirtee katama qariyey shahaadatan makhraati cindahu agtiisa ahaaday oo min allahi ilaahay xaggiisa ka aaday. nin makhraatigiiba haya oo kitaabkii uu akhriyay uu sidaa dhigaayo oo qariyey, axadka ka dulmi falid badani waa ayu buli rabbi subxaanahu wa tacaala ma jiro. ilah wuxuu leeyahy war haddaad xaqa diidaan iyo haddii aad doontaan inaad makhraatiga aastaanba wama allaahu ilaah ma aha biqaafilin mid moog oon la socon camaa kii tacmaluuna aad samaynaysaan. rabbi wuxuu leeyahy tilka taa hore eed ku muransantihiin ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub ummatun ummad weeye. mar labaad baa la soo ceshay aayadda
iyadii oo la adkaynayo jiskii koowaadna uu ku dhammaanayo weliba ee qur'aanka kariimka rabbi wuxuu leeyahay tilka taasi ummatun ummad weeye qad khalad tagtay laha waxay leedahay maa kasabad waxay shaqaysatay walakum idina waxaad leediin maa kasabtum waxaad shaqaysateen walaa tus'aluun la idina weydiin maayo camaa kii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya wuxuu rabbi tilmaamayaa nebi ibraahim iyo ismaaciil iyo isxaaq maxaa nebiyullaahi ibraahim ismaaciilna isagaa dhalay isxaaqna isagaa dhalay isxaaq baa wuxuu sii dhalay yacquub waa ambiyo iswada dhalay weeye asbaadna waa carruurtii nebi yacquub oo uu ka hormood yahay nebiyullaahi yuusuf oo isna nebiya marka ilah wuxuu leeyay intanoo dhani ma waa yahuudiya nasaaraad leediin ilah wuxuu leeyahay subxaana war ma idinkaa xaqiiqada og mise allah og xaqiiqada allah og weeye ilaahina subxaana wa tacaala waa kii ku beeniye lahaa yahuudiyaddan iyo nasaariyaddan aad sheeganaysaan nebi ibraahimba way ka dambaysay wamaa unsilat altawraatu waalinjiilu ila min bacdi injiil iyo tawraadba kutubtan aad sheeganaysaanba nebi ibraahim dabadi baa la soo dejiyey maxaanay ku yimaadeen yahuudiya nasaaradu waxayaan nebiyullaahi ciisa markii uu soo baxay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala u waxyooday unbay laba u kala jabeen qola nebi ciise unbay u gargaareen nasaaray noqdeen qolana nebi ciise unbay diideen markaa unbay yahuud noqdeen oo nebi ciise ku gacmo saydheen marka ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu leeyihi siduu aayad kale ku tilmaamayey wamaa kaana ibraahiimu yahuudiyan nebi ibraahim yahuudi ma aha walaa nasraaniyan nasraanina ma aha walaakin kaana xaniifan muslima waxa waa axad toosan ilaahay tawxiidkiisa ku toosan waxaanu ahaa axad muslim ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u hoggaansan ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu intaa tilmaamay waxay aayaddaasi soo gebagabaysay tilka ummatun qad khalad laha maa kasabat walakum maa kasabtum walaa tus'aluuna camaa kaanuu yacmaluun qisaskii faraha badnaa cibarkii iyo ciddadii faraha badnaa ee nimankii bani israa'iil ayay soo gebagabaysay waxaynu bilowgii soo tilmaannay ilaa aayadda 124 aan ka gaadhayno inaan ku jiri doono nimankii bani israa'iil qisaskooda halkaa aayaddaa ujisku ku dhammaaday ayaa waxaa markaasi ku dhammaaday suuraddani aayaadkii faraha badnaa ee xidhiidhsanaa ee kaga warramaysay nimankii bani israa'iil ilaahi subxaanahu wa tacaala halkan wuxuu ku bilaabayaa arrin kale oo cusub arrintani maxay tahay nimankii yahuud iyo nasaara waxay sheegteen saynu soo aragnay ibraahim iyo ambiyadiiba inay yahuud iyo nasaaro ahaayeen qibladooduna ay halkee ahayd baytulmaqdes inay ahayd oy u tukan jireen haddaba rasuulkeena salawaatullaahi wasalaamu caleyh bilowgii markii uu soo hijrooday ee uu yimid magaaladii madiina wuxuu u tukan jiray baytulmaqdes intii uu maka joogay wuu tukanayey laakiin wuxuu u tukanayey intuu xagga kacbada ka maro ayuu baytulmaqdes u tukanayey kacbadiina wuu isku toosiyey baytulmaqdesna wuu qaabilay laakiin rasuulku markii uu madiine yimid ayaa waxay noqotay laba jihoon islahayn halkay kacbadii noqotay koonfur ayaa nebigu wuxuu noqday axad waqooyi jooga waxa markaasi ay noqotay qibladii kale ee baytulmaqdesna waqooyi bay noqotay markaasi nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu qaabilay qibladii ilaahay uu amray oo baytulmaqdesa ayuu u tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu rasuulkiisa amray inuu u tukado kacbada inuu u tukado oo qiblada muslimiintu maanta laga bilaabo ay noqoto kacbada ay noqoto dhowr arrin dhowrkaba horta gurigii koowaad ee ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa loo dhisaa kacbadu hayna awala beytin wudica linnaas gurigii koowaad ee ilaahay inay dadku ku caabudaan loo aasaaso kacbadu ahaa qibladii koowaadna isagay ahayd ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu amray inuu halkan u jeesto waa goorma waa markii nebigu 16 bilood amaba 17 bilood uu baytulmaqdes u tukanayay kabacdi ayaa layidhi nebi allow u tuko qibladaada waxaan ka dhignay kacbadan ka dhignay maaha baytulquds maaha ee u tuko kacbada u tuko haddaba waxaad qaabilaysaa baa layidhi kacbada rasuulku salawaatullaahi wasalaamu caleyh
وجعل قبلة النبي الله إبراهيم وكعبة أهيد وجعل قري كواد إنه حقي سأجيسه إلهي تعالى دي وجعل أبو أوغا لكن إلهي هو أمرك السوي أمرك ربنا وقادني أمرك بايمد لكن ما كي قالوا بوقي سمين وحدا نبي محمد وبأسكا عيارة يعني وحيوة معها دين بكم الصونة قلبه وحويان دلع بوجه السنة شلي بيت المقدس بوتوكني ما أنتنا كعبة بوتوكني بريتو لنا وحويان كان غيركو دي إيه الكيسي وحقي هو نفتي سوش على يسطي برينا وحويان أركضوا عن أبي يهودي كدرين يسووا دينتي تلكي إسكا الله عمي إلهي سبحانه وتعالى أرنتها وكل دي قال تعالى خبوه لي سيقول وحي أوران السفهاء قوة من قابيالك إن قراتك كفلا لهين من الناس ضدك كمدي ما والله محاكتشي دي عن قبلتهم قبلذو ذي التي في كانوا أي أهايين عليها إيضا سيقول وحي أوران السفهاء قوة من قابيال عقلك قابا من الناس ضدك كمدا بآدمه ما والله محاكتشي دي عن قبلتهم قبلذو ذي iyo halkii ay u tukanayeen maxaa ka duway bayt maqdis maxaa ka duway allati tii kaanu ay ahaayeen calayha iyada kuwa u tukada qul waxaa taa nebi allow arrinku ma aha dhul loo jeeso laakiin xaqiiqadu waxay tahay ilaahay amarkiisa in la raaco qul dheh lilaahi ilaah keligiiba iska leh almashriqu cadceed ka soo bax iyo walmaqribu cadceed ka dhac bari iyo galbeedba ilaahay subxaanahu watacaala isaga ayaa iska leh haddii loo jeesto baytulmaqdes iyo haddii loo jeesto kacbada labadaba ilaahay subxaanahu watacaala ayaa iskale khabuucle yahdi ilaah wuxuu ku hagaajin ou ku toosin uu ku hanuunin man axadkii yashaa uu doono ilaa siraadin jidkaasoo mustaqiim toosan ilaahay axadkii uu doono ayuu waddada hagaagsan ilaahay subxaanahu watacaala uu ku toosinayaa khabiir markuu intaa tilmaamay waxau rabbi tilmaamayaa ummaddan nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyo ummaddani qiimiga ay leedahay ilaahay subxaanahu watacaala tilmaamaya inay tahay ummadahoo dhanba ku marakace ilaahina uu darajadaa siiyey nabigeenuna calayhi afdalu salaatu wa atamu tasliim isagoo arrintaa inoo tilmaamaya waxau rasuulku waxaa maalinta qiyaame loo yeedhi doonaa nebiyullaahi nuux markaasaa nebiyullaahi nuux ilaah markuu u yeedho ayuu leeyay labbay wasacday yaa rabbi ilaah waa ekan waan ku ajiibay rabbi wuxuu leeyahay nuuxow hal ballaqta miyaad xaqii dadka gaarsiisay fayaquulu nacam wuxuu leeyahay haa rabbow dadkii xaqaan gaarsiiyey fayuqaal liummati ummaddii nebi nuux baa lagu odhan ee ifkii isku soo cadibeen hal ballaqakum miyuu nebi nuux maalinna wax idin soo gaarsiiyey waa nebigii 950 sannadood ka dhex dhawaaqayey fayaquuluun waxay odhanayaan maa ja'anaa min nadiir wax noo digaba haba yaraatee mabaanaan arag fayaquul ilaahay baa odhan doona man yashhad laka yaa kuu maraga nebi nuuxow inaad xaqii gaarsiisood gudatay yaa kuu maraga wuxuu leeyahay muxammadun wa ummatu rabbow nebi maxamed iyo ummaddiisa ayaa ii maraga markaasay marakici ilahay wuxuu tilmaamayaa ummaddani qiimigay leedahay inay ummadahoo dhan ugu fadli badantay inay ku marag furi markaasaa ummadihii baa dacwiyey waxay odhan doonaan xaggay nagaga marag fureen ismabaanaan arag waxay leeyiin rabbow waxaan ku marag furnay adaa noo warramay qur'aankaagii baad noogu sheegtay wixii adigu aad noo sheegtay ayaanu ku marag furaynaa markaasaa laleeyahy idinkan ayaa idiin maraga annagana waxaa noo maraga rasuulka iyaga maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh markaa rabbi wuxuu leey wakadaalika sidaa ayaanu jecelnaa wakadaalika sidaa aanu islaamnimo ugu hanuuninay axadkii aan jeclaanay ayaanu jecelnaakum idinkana idinka yeelnay ummatan ummad koox wasadan khayr badan laftigan wasad waa dhexdhexaad waa khayr badni waana kii axaadiistii rasuulka ka mid ahayd umuur waxaa ugu khayr badan awsaduhaa teeda dhexdhexda ah marka haddaba ilaahi subxaana watacala wuxuu leey wakadaalika sidaan islaamnimo ugu hanuuninay axadkii aan doono ayaanu jecelnaakum idinka yeelnay ummatan ummad wasadan caqli badan khayr badan qiimi badan buu rabbi subxaanahu watacaala waxaanu saa u yeelnay waa litakuunuu inaad ahaataan shuhada'a kuwa ku marag fura cala naasi dadka oo rusushoodii u markhaati fura wayakuuna inuu noqdana
الرسول رسولكنا عليكم كركينا شهيدا من إذنكم مرق فرب رب سبحانه وتعالى سيدنكم أمضاء بكم مرق فرطان إذن كان رسولكين وإذنكم مرق فرو أيضا بل إن يرأينا مركز استلتاقنا الافتينينه أمضاني والشهداء لي أمتدك يكون مرق فري واحد وأمة وسطة أمة لحادوي عقل بدن أمضاني وأمة الوسط وحي أمة الوسط كتاي في التصور والاعتقاد وحي أركيسو iyo waxay rumaysanayso wasab bay ku tahay waxay aaminsan tahay jir iyo ruux inay jiraan labadiiba jirkuna inuu leeyahay raashin uu leeyahay ruuxuna inay raashin leedahay waa ummad tasawurkeeda iyo i'tiqaadkeeda wasabiyay bini'aadmigan bay u arkay inuu ka kooban yahay labada qaybood waa umma wasad ku ah fi tafkiir iyo shucuur fikirkeeda iyo shucuurkeeda ayay wasad ku tahay fikirkeedu ma aha mid jaamida ma aha oo xidhan oo aan tajribada iyo macrifada iyo aqoonta aqbalayn ma aha mana aha mid wax kasto iska cabaado iska qayliya ama mid kastaba wuxuu sameeyo iska raacaya oo dameere dhaan raacdeena ma aha waa ummad tafkiir leh waa ummad shucuur leh shucuurkeedu wuxuu ku tusayaa markaasi waa xaqiiqadaba markaasi qofka uu mu'minka ama bini aadmigu uu leeyahay sababtu waa maxay qofka mu'minka ah shucuurkiisu waxa weeye amba xaqiiqadiisu waa taalata almu'min mu'minka yani xaq buu rabaa xaqiiquu rabaa waa baadidiisa meel alyaala meeshii uu ka helaba wuu aqbalayaa wuuna qaadanayaa waxaana markaasi ummaddani tasawurkeedu waa ummad wasada ma aha mid qallafsan oon macrifo iyo waxba toona aqbalayn tafkiirkeedu waa mid mufatixo oo furan ma aha mid nolosha uga tegaya mashaacirta iyo damaa'irtoo qura ma aha mid uga tegayana waxa weeye ummadda yacni inay ku jirto tasfiica iyo ta'diilka maaha karbaashid sawd maaha shaabugna maaha damiirna maaha waxaa qofkaas caqligiisa waxa ka celiyo ama waxaa kale oo la yidhahdaa qofkaa ha laga qabto ha la edbiyo islaamku waa ummad tafkiirkeeda iyo shucuurkeedu labadaba uu yahay wasad uu yahay weeye islaamku tandiimkiisa iyo tansiiqaba waa wasad weeye si wuxuu nidaaminayso si wax iskugu xidhaayo si islaamku u samaynayo waa tandiimkiisa iyo tansiiqiisu waxa weeye waa mid wasada islaamku waxaan odhan karnaa waa ummatul wasada hale waa ummad wasad ku ah xagga isku xidhnaanta iyo cilaaqaadka waxay ku tahay markaas qofka fardinimadiisii iyo shakhsiyadiisii iyo bulshadii labadiibaa laysku milayaa lama doonayo inuu qofku markaasi noqdo inuu midka kale uu wixiisii qaato ilaahay shakhsiyadiina waxbuu u yeelay jamaacadiina waxbuu u yeelay miisaan buu ka dhexaysiiyey goormay kala awood weyiin goormay kala horeeyaan ilaahay subxaana watacaala wasad buu ka dhigay ilaahay subxaana watacaala ummaddan wuxuu ka dhigay wasad filmakaan halkay degantuu ka soo saaray ayaa wasada waa xundhurtii dhulka maka ayuu ilaahay subxaana watacaala ka bilaabay marka ilaahay subxaana watacaala ummadda wuxuu ka dhigay wasadan litakuuna shuhadaan cala annaas dadka si aad ugu marag furtaan baa aad ugu maqraati kacdaan maxaa lagu maqraati kacay cumar ibnu khataab ayaa maalmaha ka mid waxaa la soo mariyey janaasa meyd markuu meydkii soo agmaray ayaa dadkiiba ammaanay nin fiican buu ahaa ehlu janno ahaa kan buu ahaa wuxuu ihi cumar wajabad way u waajibtuu yidhi markaasaa nin kalaa meydkiisii la soo mariyey ninkii baa kan miyaa dhulka iyo addoomuhuba khatiyaan bay ka joogeen mid dhib badan oo caynkan u ahaa markaasuu cumar yidhi wajabad way u waajibtay dadkii bay kusoo jeestaan waxay maa wajabad ya amiira almu'miniin maxaa u waajibay yidhahan amiira almu'miniinow wuxuu yidhi anigu waxba kala ma odhan buu yidhi wixii aan nebiga ka maqlay un baan idhi salawaatullaahi wasalaamu caleyh nebigu wuxuu yidhi muslimkii ay u marag furaan afar oy khayr ugu marag furaan ilaahay jannaduu gelin doona afar muslimiin oo iimaan leh kii ay markaasay yidhahdeen anu nebi yaa rasuulallah saddexna jannadu ilaahay gelin labana jannadu ilaahay gelin laakiin cumar wuxuu yidhi mid maanaan weydiin nebiga caleyhi salaatu wasalaam hadduu mid u marag furana maanaan weydiin markaa rabbi subxaana watacaala wuxuu leeyahy subxaana ilahay wuxuu idinka dhigay shuhadaa cala annaas wamaa jacalnaa maanaan yeelin alqiblata qibladii allatii tii kunta aad ahaan jirtay calayha korkeeda nebi allow ilaa linaclama inaan dadka tusino maahe ilaahay ilaa linaclama inaan ogaano ilaahay wuu ogyahay xaqiiqada laakiin innagaa layna tusayaa rabbi wuxuu leeyahy subxaana wamaa jacalnaa maanaan yeelin alqiblata qiblada allatii tii kunta aad ahaan jirtay calayha korkeeda ilaa oo baytulmaqdesa
jeedistan aan kaa jeedinay iyo ku tukashada u tukanaysay ilaa linaclama inaan ogeysiino man dadka inaanu ogeysiino oon barno yattabicu rasuula rasuulka raacaya minman mid inaan dadka ka barno yanqalibu u laamaya calaa caqibahi cirbihiisi iyo gaalnimo rabbi wuxuu leeyahy wain kaanat waxay ahaatay lakabiiratan mid weyn wain kaanat waxay ahaatay lakabiiratan mid weyn jeesashada loo jeestay bay in kacbadu wax weyn bay noqotay ilaa cala aladiina kuwii dushoodoonay ku cuslayn mooye hada allah ilaah u hanuuniyey wamaa kaana allahu alla ma ahaanin liyutiica axad rumaynaya iimaanakum rumayntiina iyo salaadiina ina allaha allah binnaasin dadka la ra'uufu raxiim alla u dabacsanaan badan oo u naxariis badan weeye wabillahi towfiiq wsala allahu wasalama calaa sayidina maxamed wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu